Real Madrid waxay soo ka doonaysaa ciyaartoy badan haddii aan leh dhanka difaaca maadaama dhaawacyo badan ay xilligan kooxdu soo gaareen. Maxay tahay sababta Real Madrid ay isaga diideen in Ramos dib ugu soo celiso kooxdeeda? Sheekooyinkan iyo kuwo kale ayaan soo qaadan doonaa saaxiibayaal. Xog hoose oo heshay shabakadda The Athletic ayaa shaacisay in Madrid ay iska diiday fursad ku soo ceshan lahayd Ramos inkastoo u baahan yihiin difaac cusub ay ku xoojiyaan safkooda. Real waxay qorsheynaysaa inay gasho suuqa kala iibsiga si ay u xalliso dhibaatooyinka daafacyada balse waxay u muuqataa inay diidi doonaan fursadda ku soo ceshan karaan haliyeegoodii hore Ramos. Madrid ma doonayso inay u jeesato haliyeegii kooxda Ramos sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada dhaawac. Ancelotti ayaa haysan xulashooyin kooban dhanka difaaca kadib dhaawacyada Eder Militao, Alaba, Aurier Tchouameni iyo Xabi Ramon oo dhammaantood maqan. Tababaraha Talyaaniga ayaana hadda kaliya haysan Rudiger, Raul Asensio, Jose Vallejo oo ah xulashooyin daafac dhexe. Warbixinta ayaa soo jeedinaysa in Ramos albaabada u furo kooxdiisii hore balse dalabkan ayaa si cad loo diiday. Madaxweynaha Madrid ma doonayo dib u soo dhaweeyo daaficii hore kooxda xun carab ku adkeeyay inuusan mowqifkiisa bedeli doonin. Dhinaca kale ciyaartii ugu dambeysay Lee Carsley oo si ku meel gaar ah u maamul xulka sare Ingiriiska waxay ahayd mid lahayd mudnaan gaar ah. Dhab ahaantii qaar ka mid ah taageerayaasha iyo xitaa falanqeeyaasha ayaa hadalhaya goolkii England ugu dhaliyay wiil sodog u yahay ninka lagu magacaabo Roy Keane. Goolkii Harold Bellis wuxuu qoray sheeko cajiib ah marka loo eego inuu yahay wiilka sodog u yahay haliyeega Ireland Roy Keane ka falanqeeya ka sameynaya ITV. Daafaca Southampton ayaa guursaday Keane gabadhiisa Lee wuxuuna tilmaamay xiriirka uu la leeyahay aabaha gabadha saaxiibtiisa ah mid aad u wanaagsan. Goolkii ugu horreeyay Ingiriiska u dhaliyay wiilka sodog u yahay Keane ayaa si lama filaan wax looga weydiiyay falanqeynta ciyaarta kadib. Aad bay ii farxad gelisay tan ayuu yiri ka hor inta aysan asxaabtiisa stuudiyaha u sharxin daawadayaasha xiriirka ka dhexeeya daafaca dhexe iyo gabadha falanqeeyaha Lee Keane. Saxaafadda Ingiriiska ayaa sheekooyin gaar ah ka samaysay wiilka sodog u yahay Roy Keane oo dhaliyay mid ka mid ah goolasha Ingiriiska. Tababara Amiram wuxuu helay ogolaansho shaqada UK sidaa darteed isaga ayaa hogaamin doona tababarka xerada Carrington markii ugu horeysay maanta Isniin ah. Waxa kula biiri doona shaqada tababarka dhammaan caawiyaashiisa marka laga reebo tababaraha kooxda koowaad Adelo oo weli sugay warqadda shaqada UK. Caawiyaha koowaad Carlos Fernandes ayaa soo xaadiri doona garoonka tababarka iyadoo weheliya Emmanuel Vero iyo tababaraha goolaha Virgil Vital. Ciyaartoyda waaweyn ee xerada tababarka looga yeeray maalinta ugu horeysa tababarka waxaa ka mid ah Casemiro, Mount, Anthony, Marcus Rashford. Tababarka Amiram lama oga siduu noqon doono laakiin waxay rajeynayaan ciyaartoydu si fiican isku baran karaan maalinkooda cusub. Waqtigii Ten Hag tababarka Manchester wuxuu ahaa 3 saac iyo ay ku jirto quraac iyo nasiino laakiin lama oga in wax laga bedeli doono tababaraha Portugiiska dhaqankii hore uu sii wadi doono dhanka ciyaartoydiisa. Weeraryahanka Hilal Neymar ayaa qarka u saaran si cajiib ah ugu laabtay kooxdiisii hore Santos. Si laga soo xigtay saxafiga la ixtiraamo reer Brazil Carlos Luis Merlo, Neymar wuxuu diyaar u yahay inuu ku soo laabto kooxdiisii hore Santos. Merlo inta ku daray heshiiska dhex maray xiddiga 32 jirka Santos lagu soo afjaray heshiiska Hilal oo qaali ah. Neymar wuxuu soo maray safka Santos isagoo yar wuxuuna saftay kulankiisii ugu horreeyay 2009 177 kulan uu ciyaaray kooxda reer Brazil ka hor inta uusan 2016 ku biirin Barcelona. Neymar ayuu ku biiray Hilal 2023 dib markuu ka tagay Paris laakiin tan markii uu ka tagay Sacuudiga wuxuu dhibaatooday dhaawacyo badan. Xiddiga hore Barcelona ayaa kaliya 3 kulan uu ciyaaray kooxda Sacuudiga ka dhisan isagoo sanadkii hore dhaawac ACL ka uga maqnaa.